السلام عليكم صاحب يال نبي عيسى مجي عيسى وعيسى ابن مريم بنت عمران allana dadka ayuu ka doortay reer Cimraan waxa ayna ahaayeen dad saalixiin ah waxa uu ahaa Cimraan imaamkii reer bani Israa'iil iyaga ayuuna tujin jiray waxa uu qabay gabar la yiraahdo Xana waxa ayna ahayd waqtigaasi xilligii Nabi Zakariya Xana markii ay qaaday uurkii Maryama waxa ay nadar ku gashay in hadii uu wiil u dhasho ay u hibeen doonto una u khidmeen doono guriga Allah subhanahu wa ta'ala laakiin gabar ayay dhashay waxaana lagu magacaabay Maryama iyadoo aanan balantii ay gashay ka bixin Maryama hooyadeeda waxa ay geysay Maryama Masjidul Aqsa waxayna ugu tagtay meeshaasi Nabi Zakariya waxayna weydiisay qof ka faala qaado Maryama maadaama aabaheed uu dhintay inta ay dhalanin ka hor kadib Nabi Zakariya ayaa ka faala qaaday Maryama isagoo soo koriyay mar walba uu isdhaana Nabi Zakariya cunto u geey Maryama waxa uu arki jiray ayadoo haysato cunto markuu weydiiyayna meesha ay ka keento cuntada waxa ay ku dhahday alla xagiisa ay iiga timaadaa maalin maalmaha kamid ah Maryama oo rabta in ay ka quweysato dhiigii caadada waxa ay aragtay malakul Jibriil oo iska soo dhigay qof caadi ah kadib ayay ku tiri alla ayaan ka magan galay buudiye Jibriil waxa uu ku dhahay alla ayaa ii ka soo diray waxaana kuugu bishaareynaya in aad dhali doonto wiil waa ay yaabtay Maryama waxa ayna tiri sidee anigoo la iqabin ku dhali doona oona kamid ahayn naagaha jirkooda iibiya malakul Jibriil waxa uu ugu jawaabay in alle wax walba ay ka fududiin xagiisa wuxuuna neef kaga afuufay maradeeda meel yar oo ay ka banaaneed sidaas ayay Maryama uurkii Nabi Ciise ku qaaday kuna soo dhawaada taariikhdii Nabi Ciise walaalayaal Nabi Ciise waxa sidoo kale loo aqoonsan yahay Jesus waa mid kamid ah anbiyada ugu waaweyn ee Allah uu soo diray waxa uuna kamid yahay nabiyaasha muhiimka ah ee lagu xusay diimaha Islaamka Kristanka iyo Yahuudiga qisadiisana waa mid cajiib ah qisada Nabi Ciise waxa lagu xusay Quraanka Kariimka iyo diimaha kale iyadoo Nabi Ciise loo aqoonsan yahay in uu ahaa nabi cibaado badan oo Allah u soo diray in uu hanuuniyo reer bani Israa'iil Maryama markii ay dhashay Nabi Ciise waxa la faray in ay ku laabato magaaladii waxaana la faray in aysan la hadlin qofna ayna ku dhahdo dadka waxaan u soomay Allah subhanahu wa ta'ala ee la hadla wiilkayga markii ay reer bani Israa'iil u timid ay ku dhaheen waa maxay waxaan aad noola timid Maryamoy hooyada ma ay ahayn mid jirkeeda ka ganacsato aabahana waxa uu ahaa nin saalix ah kadib cunugeeda ay farta ugu fiiqday iyadoo aan la hadlin Maryamo kadib ayay dhaheen ma ilmahan yar ayaad rabtaa in uu nala hadlo kadib Nabi Ciise oo yar ayaa hadlay waxa uu yiri anigu waxaan ahay adoonkii Alle waxaana la iga dhigay nabi waxa uuna ii dardaarmay Rabbigay salaada sigada iyo in aan baari u noqdo hooyaday igama uusan dhigin mid shaqi ah waxaana nabad ii sugnaatay maalinkan dhashay maalinkan dhiman doono iyo maalinta la isoo saari doono Nabi Ciise waxa uu ku koray cibaado iyo xigmad iyadoo Alle uu baray kitaabada iyo xigmadaha Tawraad iyo Injiil waxa uuna dadku ku wacdin jiray in ay Alle u noqdaan ayna ku dhaqmaan wanaaga iyo cibaadada intii uu ku dhex jiray reer bani Israa'iil waxa uu sameeyay mucjizooyin oo badan uu Alle siiyay kuwaasi oo xaqiijinaya nabinimadiisa mucjizooyinkii uu sameeyay waxa kamid ahaa in dadka indhaha la uu soo celin jiray aragooda in uu bogsiyo cudurada iyo in uu soo nooleeyo dadka dhinta mucjizooyinkaasi oo dhan Nabi Ciise waxa uu ku sameyn jiray idamkii Alle waxa jirtay in uu dhoobo ka sameyn jiray qaab shimbir ah kadibna uu afuufi jiray ayna isku bedeli jirtay shimbir Nabi Ciise waxa uu u istaagay in dadka reer bani Israa'iil uu ku wacdiyo xaqa cibaadada iyo in ay ku soo laabtaan jidka Alle waxa uu ku buraarujiyay in ay joojiyaan caasinimada iyo xamalada xurxun isla markaasina ay ka fogaadaan faasiqnimada intii uu waday Nabi Ciise hanuuninta waxa uu la kulmay cadaabad iyo carqaladad ka timid culimadii Yahuuda iyo qaar kamid ah dadkii reer bani Israa'iil waxayna ka hor yimaadeen wacdigiisa culimadii Yahuuda waxa ay ka cabsadeen in ay lumiyaan jagooyinkii iyo awoodihii ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda waxa ayna bilaabeen in ay qorsheeyaan sidii ay u dili lahaayeen Nabi Ciise waxa ayna bilaabeen in ay ku sheegaan in uu yahay beenaale uusan xaq u lahayn in uu noqdo nabi waxa ayna bilaabeen in ay ku hor cadeeyaan maamulkii Roomaanka oo markaas xukumi jiray dhulkaasi si loo dilo Nabi Ciise da ahaan 30 sano markii uu gaaray Nabi Ciise waxa lagu soo dejiyay kitaabkiisa Injiil waxa uuna dhameystirayay kitaabka Tawraad maalin maalmaha kamid ah ayuu Nabi Ciise inta uu istaagay ayuu dhahay yaa ii gargaaraya oo iraacaya 12 wiil ayaa istaagtay oo Alle ku tilmaamay al-Xawaariyiin waxa uu amray Nabi Ciise in ay soomaan 30 maalin wiilashaasi markii ay soomeen 30 maalin wiilashii waxa ay ka codsadeen Nabi Ciise
in uu alle cirka ugu soo dejiyo miis cunto ah. kadib nabi ciise waxa uu baryay alle isagoo ka dalbaday in miis cunto ah loo soo dejiyo. alle baryadii ayuu ka aqbalay waxaana la soo dejiyey miis cunto ah. 7,000 oo qof ah ayaa miiskaasi maalintii ka cunteyn jirtay. markii diintii nabi ciise ay faaftay, qayb ka mid ah nimankii yahuudda culimada u ahaa markii ay arkeen in dadkii ay raaceen nabi ciise ay cadaabad u qaadeen, waxa ayna u tageen boqorkii Roomaanka ee xukumayay Falastiin, waxa ayna ku dhaheen waxa soo baxay nin la yiraahdo Ciise oo doonaya boqornimadaada in uu la wareego. boqorkii ciidankiisa ayuu soo diray si ay u dilaan nabi ciise. alle waxa uu nabi ciise u soo diray malikul jibriil isagoo ku amray in uu arinkaasi gaarsiiyo uuna ka dalbado asxaabtiisa mid ka mid ah in uu weydiisto in isaga loo ekeysiiyo nabi ciise si qofkaasi booskiisa loo geliyo. kadib wiilkii ugu yaraa ayaa istaagay isagaana loo ekeysiyey nabi ciise. markii ay imaadeen ciidankii boqorka waxa ay u maleeyeen in wiilka yar ee loo ekeysiyey nabi ciise uu yahay nabi ciise, isagaana dileen. alla subxaanahu wa tacaala nabi ciise waa uu qaaday samada labaad ayuuna geeyey, meeshaas ayuu ilaa hadda ku nool yahay. waxaana halkaasi ku soo gabagabeynaynaa qisadii nabi ciise, waxaana inoo balan ah qisadii nabi maxamed oo ah qaatimul anbiyaa hadduu alle idmo.